Ramadaanku waa martida qof kasta oo muslim ah oo qaangaar ah waana fursadda ugu weyn ee soo marta qof kasta oo inaga mid ah. Ma doonaysaa in Ramadaankan aad ka dhigato Ramadaankii kugu fiicnaa oo aad ka dhaxasho isbeddel dhab ah, xakamaynta nafta, beddelidda caadooyinka aad jecleed inaad mar uun ka joogsato si aad u bilowdo habdhaqan cusub oo kuu dhoweynaya Alle. Haddaba kani waa muuqaalkaagii. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيق وقاسم محمد وحنا صاحب كل جعل هرمر إيا وناك كسو دوو جنال كاغا هاقها نفتا بشاريسو وحا كسوقا بشي بالبركيسان وحا كسوقا بشي بشي تربية وناك سنيد waxaa ku soo qaabishay bishii aad ka loo aqrinayay quraanka kariimka waxaa ku soo qaabishay bishii aad ka toobad keeni lahayd gafafkii badnaa oo aad soo gashay 11 bilood aynu soo dhaafnay waa bishii lagu furayay 8 albaab ee jannada lagana xirayay 8 albaab ee naarta waa bishii rabbigaaga uu kugu yiri soonka aniga ayaa iska leh aniga ayaana abaal marinaya waa bishii aad ku jilcin lahayd qalbigaaga dikriga Alle waa bishii aad badin lahayd bixinta sadaqada waa bishii nafsadaada aad ku tarbiyan lahayd ka istaagida caadooyinka aan wanaagsanayn oo aad jecleed inaad maalin un ka istaagto waa bishii aad iska xiri lahayd baalasha madow ee noloshaada aadna furan lahayd baalal cusub. Haddaba maxaa qorshe ah oo aad u diyaarsatay Ramadaankan? hawalwalin waxaan kuu sidaa 4 tallaabo oo aad Ramadaankan uga dhigan karto mid aad uga faa'iideysato kheyraadka faraha badan ee Alle. Tallaabada koowaad u samayso jadwal aqrinta Qur'aanka Kariimka. Bishan waa bishii Qur'aanka uu soo degay waa bishii malakul wahyi oo ah malakul jibriil iyo suubanaheena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay si wada jir ah u aqrin jireen Qur'aanka Kariimka. sidaa darteed samayso jadwal ku xusan waqtiyada aad aqrin lahayd Qur'aanka Kariimka. haddii aad doonayso inaad Qur'aanka dhamayso aqrintiisa bishan barakeysan ee Ramadaan gudaheeda hal mar maalintii waxaad akhrisanaysaa hal juz oo kaliya. haddii aad doonayso inaad 2 jeer dhamayso Qur'aanka Kariimka bishan barakeysan ee Ramadaan inta lagu dhex jiro maalintiiba waxaad akhrinaysaa 2 juz. haddii aad doonayso inaad dhamayso 3 jeer inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan waxaad akhrinaysaa maalintiiba 3 juz. kuna xisaabtan bishan inay tahay bishii Qur'aanka. tallaabada labaad salaad badan. bishan barakeysan ee Ramadaan waxaa la laba jibaaraa camal kasta oo wanaagsan ajirkiisa. sidaa darteed adigana ku dadaal inaad la timaado camalo kala duwan oo aad ugu dhowaanayso Alle si aad uga hesho ajir aad u fara badan. salaadana waa camal ajirkiisa aan caadi ahayn. salaadu waxay ka reebtaa xumaanta waxayna ku dhaweysaa rabbigaaga. sidaa darteed inta aad ku guda jirto bishan barakeysan ee Ramadaan fiiro gaar ah u yeelo maadaama ay ka sii ajir badan tahay salaadihii la dukan jiray bilaha kale. ku dadaal inaad ku dukato masaajidada salaad kasta oo aad dukanayso marka laga reebo salaadaha sunnada ah oo ku wanaagsan in lagu dukado guryaha. hana hilmaamin inaad ka qayb qaadato salaadaha taraawiixda iyo tahajjudka si aad uga dhaxasho ajir aad u fara badan. tallaabada saddexaad bixi sadaqo intay doonto hala ekaatee. bishan Ramadaan ma ahan oo kaliya bil la soomo sidoo kale waa bil la caawiyo masaakiinta duruufaha kala duwan haysta oo aanan awoodin in ay maareeyaan noloshooda. waa bishii loo gacan furnaan lahaa masaakiinta laguna caawin lahaa qof kasta waxa uu awoodo. haddii aad wax dhaanta caawi masaakiinta adigoo ku caawinaya wax kasta oo aad u awoodi karto ugu yaraan isku day inaad afuriso hal qof si aad u hesho ajirkiisa oo kale. sida uu inoo sheegay suubanaheena Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam sadaqada waxaa lagu daaweeyaa dadka xanuunsan. maanta bixi waxaad ku baxsan doontaa maanta maalin aad uga baahi badan tahay. tallaabada afaraad ka fogow wax walba oo soonkaaga wax u dhimaya. sida aan ognahay Ramadaanku waa bil adoomaha Alle gaar ahaan mu'miniinta ay laba jibaaraan cibaadadooda iyagoo ugu dhowaanaya Alle weyne.
waxaa jira waxyaabo ay ka fogaadaan mu'miniintaasi si uusan uga nusqaamin ajirka ay ka helayaan soonkooda. waxyaabaha ay ka fogeeyaan nafsadooda waxaa ka mid ah ciyaaridda turubka, laadhuuga, fadhi ku dirirka, dhegaysiga ama daawashada waxyaabaha aan fiicnayn, iyo wax kastoo ka mashquulin kara ka faa'iidaysiga bisha Ramadaan. sababtoo ah Ramadaanku ma ahan bil ciyaar ah. dadka doonaya aakhiro inay noqdaan dad aflaxay oo ku guuleystay jannada Alle kana galaan jannadaasi albaabka lagu magacaabo Baabur Rayyaan oo ay ka geli doonaan oo kaliya dadka saa'imiinta ah ee u soo soomay Alla dartiis kana fogeeyay nafsadooda wax kasta oo wax u dhimaya soonkooda. sida uu Alle inoogu sheegay quraankiisa kariimka ah, soonka waxaa laga dhaxlaa cabsida Alle. wuxuuna Alle quraankiisa nagu leeyahay: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. kuwa Alle iyo rasuulkiisa rumeeyayow, waxaa lidinku waajibiyay soon sidii loogu waajibiyay ummadihii idinka horeeyay, waxaadna mudan tihiin inaad cabsataan. ugu dambeyn, bisha barakeysan ee Ramadaan 10keeda maalmood ee ugu horeeya waa naxariis. Alla weydiiso inta aad ku guda jirto 10ka maalmood ee ugu horeeya naxariistiisa. 10ka maalmood ee dhexe waa dambi dhaaf. Alla weydiiso inuu ku dambi dhaafo. hana iloobin hadalkii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu yiri: naarta af ha ugu dhaco qofka inta uu Ramadaan soo gaaro aan loo dambi dhaafin. 10ka dambe waa iska xoreynta naarta. Alle waxaad ka tugtaa inuu kugu daro dadka uu ka xoreynayo naarta si aad uga badbaado yawmul qiyaamaha. hagaag ku qaba muuqaalka like oo ha noqon bakhiil, una sii sheergaray asxaabtaada. weli haddii aadan la saaxiibin, saaxiibtinimadaada waa inoo horumar iyo dhiirigelin. ee ku qaba channelka Hagaha Nafta subscribe, kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaal walba aynu soo dhigno. intaan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socda, waxaan ku leeyahay Ramadaan Kariim.